qaar ka mid ah shirkadaha ka soo qayb galay carwada warshadaha Soomaaliland oo maalintii labaad ka socotay magaalada Hargeysa ayaa ka waramay adeegyada ay ku soo bandhigeen carwadan tobnaad oo maalintii labaad ka socotay magaalada Hargeysa. Shirkadahan waxaa ka mid ah shirkadda Lis, shirkadda Capson, shirkadda Cadarada ee Luxury Performance, shirkadda CBI Agrobusiness. Mas'uuliyiinta shirkadahan oo ka waramaya adeegyada carwadan ku soo bandhigeen waxa hadaloodii ka mid ahaa waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkan oo ay daadihinayso shirkadda Lis oo la yiraahdo Lis iyo Nasiib kaasoo lagu guuleysanayo akabka elektarooniga kala duwan. qofkii ugu horeeyay saaka guuleystay wuxuu ku guuleystay dahab, waxa ku jira qasaalado, waxa ku jira TV-yo, waxa ku jira telefoonno smartiya, waxa ku jira fridge-yo, akab elektaroonig oo dhan noociisa oo dhan baa ku jira. barnaamijku wuxuu koobsanayaa xabad kartoon caana oo 78 kun oo shilin ayaad iibsanaysaa. waxa kaloo iibsanaysaa sharaabada miiranta oo shirkaddu soo saarto. kadib waxaad noqonaysaa qof ka qayb qaata bakhtiya nasiibka Lis iyo Nasiib. iibso Lis si aad uga qayb noqoto guuleystayaasha maanta. wallahi dareenka alxamdulillah maanta aad wanaagsan yahay. waxaan ka soo qayb galnay carwadan halkan hotel Mansour laga furay Hargeysa. ma sha Allah de mutaqarrisiinka waxaan ku guuleystay dahab. Capson Group ahaan waxaan ku soo kaga qayb qaadanay ama aan ku soo bandhignay laba shirkadood oo kala duwan. waa qaybta real estate-ka iyo qaybta production-ka. waxay nagu cusub oo aad u muhiim ah inaanu soo bandhignay maanta macjuumka oo markaasi marmarka lagu dhigi doono iyo jaajuurkaas oo markaasi smart ah oo isagu isgalgelaya qofka uu kaga reysan doono wax weey sibirkii badnaa ee jaajuurka gelayay iyo qaybihii kala duwanaa jaajuurka caadiga ahaa hadduu yahay ka 15 laha ama 20 laha ama 10 laha sidoo kale iyo marmarka qaybihiisii kala duwanaa oo dhan. sidoo kale qaybta real estate-ku guryo casri ah oo design-koodu waxa weey la jaan qaadaya caalamka ayaa markaas iyadana aan soo bandhignay oo dadku leetolay arki doonaan. markii hore waxay ahaayeen 3D laakiin maanta qof walbaaba wuxuu awood u leeyahay inuu arko iyagoo si dhab ah u dhisan ayuu markaas nagu soo booqan karaa qaybta guryahaygu ay ka dhisan yihiin. marka kulleey dadweynaha waxaan u soo bandhigaynaa oo ka iibinaynaa waa quality-ga iyo tayada agabka aanu hayno oo dhan haddii yihiin guryaha iyo haddii yihiin qaybta production-keenu markaasi soo saaraynaba. waxaan leenahay ku soo dhawaada gacmo furan. waxaanu ka soo qayb galnay carwadii tobnaad ee Soomaaliland. waa carwo ganacsiyeed ma sha Allah waad aragtaan sida dadku u yimaadeen. anagu waxaanu haynaa udugii oo dhan, waxaanu haynaa cadarkii, waxaanu haynaa boqorkii, onsigii, air freshnadii, ya giftiyadii oo dhan baanu haynaa. markaa ku soo dhawaada luxury perfumes waa LP de ma sha Allah waa aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galnay carwada. qiimihii hore looga siin jiray anagu waxaanu ka dhinnay si fiican baan wax uga dhinnay 10% baan ka dhinnay ma sha Allah. laakiin anagu takaliyo taa ku faraxsanahay waxa weeyaan qiimaha dhimista imika ma aha. inta magaaladu kor u kacaysay anagu qiimahayga ma kicin. 3 sano halku taagnaa ayuu imikana taagan yahay ma sha Allah. ku soo dhawaada. fariinta aad u diraysaa macaamiisha ku xidhan luxury perfumes waxa idin jooga shaqaale aad u furfuran u faraxsan idin soo dhaweynaya xagga customer service markay noqoto udugina aad baan u haynaa ma soo dhawaada.